kulan wacan daawadayaal ku soo dhawaada qaybta saddexaad sheekada cirbadii eelka reebtay. Sheekadan waxaa qoray Cabdullaahi Saalax Axmed. qaybta saddexaad waxa ay ku bilaabanaysaa casar gaaban bay ahayd markaan shaqada ka soo rawaxay anigoo aad u daalan ayaan u soo looday xagga xaafadda. waxaan soo maray meheradii hooyo si aan hore isku sii raacno intii aan maqrib la aadimin ka hor. haddaan meheradii soo maray waaba ay xiran tahay. waxaan maanta hooyada dejiyay waa maxay ayaan isweydiiyey. axadna anigoon warsan ayaan qumaati u abbaaray gurigii. laba luuq ayaan isla soo dhigay. waxaan ku soo dhacay waddo halbowle ah oo xaafadayada hormarta toosna ii geynaysa. tii baan soo qaaday. waa maxay sawaxankaas? waa meel iga horraysa oo lagu aruursan yahay. bal hore u dhaqso aad ogaatideh ayaan iskula hadlay. markaan u soo dhowaaday sidii niyaddu igula faqaysay bay noqotay oo shil baa meesha ka dhacay. gawaarisa ma arko. sidee wax u jiraan? hore ayaan u soo tallaabsaday. ugu dambaynna waan soo gaaray. dhiig aan yarayn ayaa waddada meel koonaheeda ah ku yaala. dadkuna ku xunsan yihiin. madaxa ayaan kala soo dhex dusay 10 qof dhexdood. mise qofna meesha ma yaallo oo waa dhiig keli ah. dadkii ayaan warsaday. waxay ii sheegeen in qof dumar ah meesha gaari ku jiiray. wadnaha ayaa hoos ii ruqay. qofse tilmaan dumarnimo ahayn isiiya waan waayey. meeyey qofkii ayaan ugu daray. waxay iigu hal celiyeen dhowr daqiiqo ka hor ayaa ambalaas ku qaaday. cusbitaalna waa loola cararay. maan sii waraysan anigoo sidii u naxsan ayaan xaafaddii beegsaday. dhowr luuq ayaan ka sii dusay. xaafaddiina waan soo gaaray. mise waa xiran tahay. naxdin weynaa. xaafaddii dariska ee aysan weligeed hooyo salaanta la soo agmarin ayaan weydiiyey. waxay ii sheegeen in aysan hooyo iyaguna arag. orodkii aan soo qaadnay aniga iyo labadii hablood ee xaafadda dariska iga soo raacday. cusbitaalka ayaan ku nimid. qolka emerjensigana degdeg ayaynu u tagnay. waxaan soo qabtay mid ka mid ah kalkaalisooyinkii si aan uga warsado qofka meesha la keenay. markiiba waxay ii sheegtay in cid loo la'aa bukaankan qalliin lagu samayn lahaana dib loo dhigay kadib markii dadkeedii la waayey. anoo ilmaynaya ayaan degdeg qolkii u galay. mise waa hooyo. ilaa naxdin looma dhinto. sidii aan u ooyey maalintaa weligay intaan xasuusto uma ooyin xitaa maalinkii uu aabba geeriyooday. hooyo kooma ayay ku jirtaa. shilka lugta bidix oo ilaa iyo miskinta dherarsan ayuu ka gaaray. madaxana nabarro aan yarayn ayaa kaga dhacay. muddo yar kadib waxaana soo gaaray dhakhtarkii. wuxuuna ii sheegay in la doonayo in dhiig loo shubo hooyo. cabaar badanna la la'aa cid ay isku dhig yihiin. wuxuu isagoo niyadda ii dhisayo igu yidhi, adeero waxaan kuu rajaynayaa in ay hooyo caafimaaddo ee kaalay dhiiggaaga ha la tijaabiye. waan soo dabagalay. dhiiggii la iga qaad. meel aan ka durugsanayn ayaan u fadhiistay. waxay gudagaleen hawshii looga baahnaa. daqiiqada kadib waxaa wejigooda ka muuqday madow aan kolkii hore laga dareemayn. dareen eegis dheeraad ah ku laran ayaan siiyey. anoo hibiqtimaya ayaan ku idhi, isku dhiig ma nihin miya? maya ee inaga warsug bay igu yidhaahdeen. madax ayay isla galeen. hoos ayay hadallo isku weydaarsadeen. orod badanna waa ka dhacay. shaqo culus oo dhaqso ah inay hayaan ayaa dareemi karayay. hawshii in ay ka faraxasheen baan xaqiiqsaday. waa kan dhakhtarkii dhukurnaa ee markii hore niyadda ii dhisay igu soo socda. adeer isku dhiig baa tihiin. iminkase dhiigga lagama shubayo ee qof kale waa inaan dhaqso u doonnaa innagoo ku xisaabtamayna wakhtiga yar ee aynu haysanno. waa naxay runtii. waxaan weydiiyey oo sababma maxaa diidaya in aan dhiiggayga u shubo hooyo? waynu wada hadli adeero ee niyadda khayr u sheeg ayuu igu yidhi isagoo ii muujinaya degdeg iyo muhiimadda hawsha uu hayo. muddo ayay igu qaadatay in aan soo helo qof hooyo la dhiig ah. ugu dambaynse waan helay. dhiig shubistii ayaana bilaabatay. dhegaystayaal, waxaan halkaa ku hakinaynaa qaybtii saddexaad ee sheekadii cirbadii eelka reebta. haddaba la soco qaybta afraad ee sheekadan.